barnaamijkeenana maanta waxa uu ku saabsan yahay hooyo Soomaaliyeed oo dhibana u ah systemka. hooyadani oo dalka Mareykanka timid iyada oo yar ku kortay waxna ku baratay kana shaqaysa arrimaha caafimaadka businessyada badan leh caruur 4 ahna dhashay ayaa waxa ay dhibana u tahay systemka iyadoo ilmaheeda mid ka mid ah si xaq darro ah looga qaatay muddo 2 sano ka badan haatan systemka la soo dagaalamayay. hadaba hooyadaasi waa Deeqa Xaaji Yuusuf. Deeqa Xaaji Yuusuf waa registered nurse ama kalkaaliyaha register garaysan oo shahaadooyinka sare haysta. waxayna hooyo u tahay Mahad Saciid Maxamed oo dawladda Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio countiyada ay degan tahay mid ka mid ah ay canugeeda si xaq darro uga qaateen ilaa haddana ay la dagaalamayso. hadaba sheekadaasi aad ay u xiiso badan tahay. hooyadani ayaa nala wadaagaysa sheekadeeda sidaan uga hortagi karno iyo sida aan u caawin karno iyada iyo inta kale ee la midka ahba. Deeqa ku soo dhawaad Somali TV. wandhawahay walaal aad iyo aad nabad mahadsantihiin sidaad ii soo dhaweyseen arrinteeda aad u soo dhaweyseen iyo taageeraha aad familygayga tusteen. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Deeqa waxaa tahay qof wax bartay systemka wax badan ka yaqaana adiga qudhigaada ka shaqaysa arrimaha caafimaadka. ilmahaada sidaad ii sheegtay 2 mataana ah mid ka mid ah ayaa xanuun markuu dhalinayay dhakhtarka ku soo gaaray nabar. dhaqaatiirtii inay u geysteen laga yaabo adigase madaxa lagu saaray dambina lagaaga dhigay. bal arrintaasi wax yar information ah macluumaadka ma naga siin kartaa si dadka ay u fahmaan. sidaad u sheegtay walaal anigu waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed wadankana nolosheeda intii badnay joogtay anigoo 8 sano jira ayaa lay keenay wadankan baan naqaanaa iyo afkiisa iyo dhaqankiisa. 2022 ayuu ilaahay iigu bishaareeyay 2 wiil oo mataana ah. pregnancy aad iyo aad u xanuun badan oo complication fara badan oo high risk ayaan qaaday. nabaro badan ayaa iga soo gaaray uurkaas. markii aan wiilasha umulayay ayuu nabar ku dhacay wiilashayda 2 wiil mid ka mid ah. nabarkii markuu dhacay anigu maadaamaan khibrad u lahaa caafimaadkii run ahaantiina 2 wiil aragtidooda kaliya ay sheegaysay inay kala duwan yihiin oo aqoon gaara ama caafimaad aanba loo baahnayn nabarkoodu nabar cado loo jeedo uu yahay ilaa iyo aniga markii layga soo saaray baan sheegayay inay wax khaldanaayeen uu nabar jiro. waxaan la kulmay arrimaha badanaa dumarka aniga ii eeg Mareykanka ku nool intiina gaarin arrimahaasi nabarka ma adoo dhakhtarka jooga ayaa wali ka soo bixin ka soo mid u sheegtay dhaqaatiirta in ilmaha nabar gaaray oo caadi ahayn. qolkii laygu qaliyay baan joogay markii wiilka yar aan sheegeen iri wiilku 2 wiil isku mid maaha. waa tahay hadaba meesha hadii aad markiiba sheegtay maxaa adiga dambiga madaxa lagu saaray? waa taanu ilaa hadda garan la'aanahay dagaalkan ugu jirno. si kasto oo naloo baari karo waa naloo baaray. dawladdu wax walba ay na weydiisatay waanu sameynay. baaritaankii na baariyeen waanu ka qayb qaadanay. iyagii baa sheegay aakhirkii inaanan anagu nabarkan wiilka yar u geysanin. sababta marka madaxa nalooga saaray dambigan iyo sababta wiilkeena yaraa ilaa hadda dawladda nooga haysato waa su'aalaha aanu u la'nahay jawaabaha. ilmaha goorma laga qaatay? ma asoo umusha ku jiro ma laga qaatay mise muddo kadib sanad iyo bad ku dhawaan baan ilmaha anigu haystay inta badan dhakhtarka kula jiray. maxaa tiriga gareeyay ama keenay in laga qaato sanadii barkad? xanuunkiisa baa xal loo raadinayay. xanuunsanayay oo nabarkii ku soo gaaray umusha. nabarku hadduu nabar alla yahay oo qofku wax walba waa amar Allah ama ku dhalo ama ha lagu geysto. nabarka wiilkayga yar gaaray nabar generic ama caafimaad darro uu ku dhashay muuna ahayn. nabar juga oo qof u gaarsiisay bay ahayd. muddo badan ayay ku qaadatay dhakhtarada iyo systemka in ay sabab ama magac u sameeyaan nabarkii la gaarsiiyay Mahad. waa tahay marka sida aan ognahay adiga kaliya maaha iyo waalidiin badan oo Soomaaliyeedba iyo waxaa la dhahaa marka ilmaha laga qaadanayo ilmihii bay abuse ku sameeyeen ama xuquuqdooda ku xadgudbeen. ilma kalaad haysaa oo dhashay ilmaha kale ma lagu qabsaday?
waxyaabaha la yaab kale aanu la soo kulanay bay ka mid tahay 4 caruur aanu dhalnay 4tii baanu mid ka dooranay inaanu dilno laakiin 3dii kale waanu haysanaa waanu lagu aaminay waalido fiican baanu nahay gurigii baanu ku haysanaa laakiin kan waanu dilnay ma isleedahay marka dadka Soomaalida ama muslimiinta in si gooni ah loogu fiirsanayo 100% waxaan anagu shakhsi ahaan dareensanahay dhibaatadan horta waa amrila dad muslimiin baynu nahay qadar allana aaminsan soona dhaweynayna imtixaanadu ilaahay inoo soo diro laakiin aad iyo aad waxaan igu sii weyn una rumaysanahay arrintani aniga inay igu sii ballaaratay saameynna igu sii yeelatay because sababta ay tahay qofka aan ahay Soomaali baan ahay madow baan ahay muslim baan ahay immigrant baan ahay caafimaadkii baan fahmayaa dowladdii baan fahmayaa afkiina waan garanayaa waxay ahayd a targeted situation laakiin unfortunately mid aniga kaliya igu kooban ma aha it's not isolated aniga family kaliya kuma koobna arrintani waxay noqotay arrin communitygeena ku ballaaratay systemic failure-ka iyo familiyadii Soomaalida saameynta ku yeelatay weligeed waa la sheegay waana la ogaa child welfare system-ka in uu systematically disproportionate u yahay dadka colorka ana ay more susceptible u yihiin iyaguga sii xag jiraan dadka laakiin hadeerto madownimadii Soomaalinimo ay noo raacdaynaka madowgii ka sii xag jiray dadka ayaynu ka sii xag jirnaa maanta waa tahay adiga haddaba markii ugu horreysay ilmaha laga qaatay dambi bay ku yeeleen صح dambiyadii lagu yeelay dabcan waxa la dhihi karaa falani ama ilmo yar baad ku xadgudubtay dambiyadii maxaa laga sameeyay 3 dambi bay noo qabsadeen markii ilmaha yar nabarkiisu uu soo baxay ilmaha yar sheekadeeda dhowr meelood baan ka sheego inta badan inay la socotaan u maleynaya 2 bilood baan guriga ku haynay oo dhiigu madaxa ku kala garanay ku ururayay markii dambe dhiigu meel uu aado waayay buu afkiisanka ka yimid markii laga qaadanayay dabcan dambi baa lagu yeelay dambiyaashu waxay ahaayeen marka ilmaha yar markii la geeyay dhakhtarka hay'adda caruurta way u jeeday way cadeyd ilmahan inaan ku nabarka geynin sida developing story-ga oo kale ayay sheekadeena u dhacaysay markii koobaad ee dhakhtarka la geeyay run ahaantii dhakhtarka caruurta aanu la macaamilaynay habeenkii ilmaha yar loo keenay mayna garanayn ilmahan meeshuu ka yimi iyo nabarkiisu meeshuu kasoo asaasmaday markii iyagu run bay sheegeen waxay yiraahdeen nabarka ilmaha yar madaxa ka gaaray nabar wuxuu ahaa socdaala 8 week buu jiray 2 bilood weegag nabar ka socda dhiigani waqti bay ku qaadatay madaxiisa inuu ku ururo waana run ahaantii xaq wixii jiray bay sheegeen 2 isbuuc ka bacdi mise isbuuc ka bacdi markii ay heleen recordskii labor and delivery-gii umushii caruurta recordkoodii ayaa sheekadii oo dhan la bedelo layiri nabarkani muuna ahay nabar socdaala waa nabar hadda dhacay si annagana loogu soo koobo sidaasaa nabarkii aniga iyo caruurta aabahood odayga madaxana looga saaray markii koobaad ay naqabsadeen hay'adani waxay yiraahdeen hooyadii aabahood waa ka mas'uul nabarkan maadaama nabarku socdaal ahaa 2 isbuuc ka bacdi markay warqadii iyo rekorkii heleen bay yiraahdeen nabarkan socdaal ma aha wuxuuna dhacay habeenka anigu habeenka guriga ma joogin aabahood baa caruurta la joogay sida situationkii loogu isolate gareeyo loogu soo koobo hal qof waliba wiil madoowa oo afrikaana oo immigrant on afkiisa aanu garanaynin sheekadii oo dhan waa la reframe gareeyay narrative cusub baa loo sameeyay waxaa la yiri nabarka socdaal ma aha waa nabar cusub qofkii hayay baana ka mas'uula laakiin sheekadii ilaa hadeerto way isqabsan laadaho nabarkii markii la dabagalay waqtiga ay ku qaadato nabarkaasi inuu ku dhaco iyo habeenka inuu dhacay way isqabsan weyday aakhirkii markay nala aadeen maxkamadaha 3 dambi bay noo qabsadeen dambiga koobaad wuxuu ahaa child abuse oo nabar inaanu ilmaheena gaarsiinay dambiga labaad wuxuu ahaa child abuse oo inaanu cunugeeni aanu abuse garaynay dambigii saddexaadna wuxuu ahaa child dependency wax la yiraahdo oo ah qofka waalidka ah
inuuna mas-uuliyaddiisa kasoo bixin. mid walba wuxuu ahaa a felony charge. mid walba 10 ilaa 15 sano watay oo ka ugu horeeya waa child abuse iyo child neglect child dependency. kiina 15 sano wataa. midkiiba 10 ilaa 15 sano ayuu watay. waan dagaalamay 4 sano iyo bar baan dagaalkan ku jiray. ilaahay baa ii gartay inaan albaabadan iyo qolalkan galo oon dadkan la hadlo, afkoodina i fahansiiyey. muddo badan dagaalka markii aan waday, ilaahay wuxuu la kulansiiyey madaxweynaha hay-adan caruurta ku saabsan ee magaalada aan deganahay. isagii baan u kaxaystay state representative-kayga Maniire Cabdilaahi iyo council memberkayga Maxamed Cumar iyo dhowr qof oo kale oo community-ga kamid ah. madaxweynihii baan la soo hadloon ku hore, madaxweyne anagu mana fitgareeyo profile-kan iyo narrative-kan hooyo iyo aabo ilmahoodii dilay. anigu afkii baan garanaya. waa child welfare systemka qofka u weyn, waa madaxweynaha Ohio oo dhan child welfare systemka haysta. okay, ma gartay. waxaan ku yiri anigu miyaan fitgareeyaa profile-kan iyo narrative-kan la sheegayo. hooyo waxaan ahay caafimaadkii garanaysaa, hooyo caruur kala haysato daryeesha. waxaan ahay hooyo caafimaadkii iyo ilmaheeda wixii soo gaari garanaysaa. hooyo financially stable oo ilmaheeda ku filan. hooyo maanta ilaahay aqoon siiyey adiga inay kuga soo hor fadhiisato. adigan ku weydiinaya, hay-adaadu 3 sano iyo bar bay baadhaysay baan ku iri. hay-adanina waa hay-ad anaku aanu ka dareensannahay ama aanu ka rumaysnayn inay tahay hay-ad caruuraha iyo reeraha badbaadisa. laakiin aniga reerkayga maydaan badbaadinin. reerkayga waad kala tuurteen, waadna separate garayseen, ilmahaygana xaqdarro ayaad iga qaadateen. inaad arrinteeda dib u fiirisid iyo saameynta ay ku leedahay shacabkayga ayaan rabaa. 2 bilood ka bacdi maxkamad baanu lahayn. isaga waxaan u tegay bishii 9aad 2024. bishii 10aad 2024 maxkamad baanu lahayn. markii aanu tagnay wax walba waa la daraabgareeyey. ilmihii yaraa abuse-kiina waxaa la yiri mayna dilin waalidiin. neglectkiina waxaa la yiri iyagu mayna dayaceen. daryeelkiina waxaa la yiri iyaga faultkooda ma aha. waa bishii 10aad 2024. maanta bishii 7aad 2026 baynu ku jirnaa. 2 sano kadib ilmahaygina weli ma haysto, systemka ayaa haysta. maxay marka hadda chargeska dhan hadii la drop gareeyay maxaad ku haystaan oo excuse ay ka dhiganayaan? haddaan su-aashaa garan karo waan kuu sheegi lahaa. anaa raadinaya jawaabtii. ilaa hadda xukumay sheegeen. waa tahay hooyo Soomaaliyeed baa tahay, waana ognahay hooyooyinka Soomaaliyeed carruurtooda siday u jecel yihiin. saa darteed baa ilmo badan aan u dhalnaa. haddayna ilmo jeclaan ilmo badan carruurta hooyooyinkeena ma dhali lahayn. waa runtaa. dareenkaaga ka waran adiga shakhsi ahaan, ilmahaagii kaa maqan in muddo ah oo weliba xanuunsan? dareenkaygu bedelo badan buu leeyahay, wejiyo badan buu leeyahay, malaxarado badan baan la maraa. qof waxaan nahay intaas ku jirta taxadar. waa inaan nafteyda kala qaybiyo, is ilaaliyo. waa inaan dhinac iska ilaaliyo. dowladiibaa noo fiirsanaysa. dagaal weynna waan qaaday. hay-ado badanaa dadkeena kaynoo eeg ayna dagaal ku qaadina dagaal baan la galay. hooyo garan maayo iyo aabatoona ilmahoodii oo laga haysta dagaalka joojin lahaa. way la yaaban yihiin, aniguna iyagaan la yaabana. marka dareenkaygu waa dareen run ahaantii aada isu bedela. saacad waxaa laga yaabaa inaan oynayo oo markii aan nabarkii iyo ilmahayga xasuusto. saacadda ku xigta kuwii kalean la ciyaaraya. saacadda ku xigtana waan shaqaynaya. marka koofiyado badan baan xidhaa. dareenkayguna dareen lasoo koobi kara ma aha. laakiin midda aan ogahay ayaa waxay tahay inaan noqdo anigu shaqsi dareenkeeda controli karta. sababtay tahay aad baa laygu fiirsanaya. wadankanna dadka inakoo kale ah waxaa la yiraahdaa markaad rabtid qof inaad eliminate garaysid oo ka saartid meel, waa la character assassinate gareeyaa. shaqsi ahaan baad u saameynaysaa qofka. maraykankana aqoon waxaa loo leeyahay dumarka madowga inay yihiin dumar aada u xanaaq badan, hadalkooda aan sixi karaynin,
aan lala hadli karin lala macaamili karaynin marka waxay isku dayaan inay category-ga ay geliyaan ka xanaajiyaan si loo dhaho bal fiiriya waa waxaanu sheegaynay angry black women marka badanaa waa in aan hadalladeeda iyo actionadeeda aan mar walba la socdo si anigii saameyn kale aan leegu marmarsiyo kale marka dareenkayga waa dareen fara badan oon la soo koobi karaynin dareemo badan dabcan dadka Soomaaliyeed waa dad resilient oo dhibaatooyin badan ayay ka soo gudbeen oo waxyaabo badan oo ku dhacay dadka qaar way adkeysan lahayn waxaa laga yaabaa dhibaatadani aniga inta aqaano dad badan oo Soomaaliyeed ayay ku dhacday dadkan waxaa laga yaabaa in wax kale naga aaminsan yihiin oo dadka Soomaaliyeed way ku yar tahay dad droogada aad u isticmaalo oo caruurtooda dila way nagu yar dad iimaan oo islaam baynu nahay marka waalidiinta Soomaaliyeed ee kale hadda laga yaabaa dhibaatadan kale inay haysato maxaa tala siin lahayd sababta aan banaanka ula soo baxay sheekadan banaanka aan ula imeen public uga dhigay ayaa anoo iyaga hooyooyinka ka fikiraya marka koobaad wiilkaygaan rabaa inaan ku badbaadiyo iyo nafteeda iyo reerkayga mar labaadka aan sheekadan go-aanka ugu qaatay inaan banaanka ugu soo baxo inaan hooyo kale weliba hooyo kale oo Soomaaliyeed oo aniga ii eeg nabarkaan maray inayna marin in mid maanta ku jirta aan tusaale u noqdo mid ay ku soo socotana hortag uga noqdo haddii aan talo ama waano uga tagi lahaa gabdhaha walaalada ee Soomaaliyeed iyo wixii muslina iyo wixii immigrantaba ee wadankan ku nool waxaan dhihi lahaa wax barta aqoon ma aha school kaliya educate yourself anigu hadda aqoon iyo khibrad waxaan leeyahay caafimaad waxyaabo badan baa iga hoos baxay anigoo khibradii leh sababtoo tahay kama fikireen weligaa way kugu dhacaysaa qof walba hal arin ayaa ka xigta inuu situation galo macalimad iskuulkii dhigi jirtay baa igu dhigi jirtay everyone is one tragedy away from being in a predicament aqoon la-idii iyo aniga jaahilnimadii ignoranceka waxaanoo kale kuguma dhacayaan inaan kala sii dardaarmo gabdhaha walaalada ii eeg inay markay uurka qaadaan markay dhakhaatiirta la macaamulayaan waxaynu ognahay caafimaadku ma aha area inakeenoo fiican discrepancy iyo disparity badan baa miracleka ka jira dumarkeenna waa la aamusiyaa anigu ilaa iyo maalintii ilmahayga dhalay waa lay dismiss garaynaya waana lay silence garaynaya marka iyaguna way iga sii xag jiraan weliba afkii haddayna garanaynin waxaan ku waanin lahaa kuna dhiirigelin lahaa mar walba qof kaa aqoon badan haddaadan wixii garanayn raadso haddii aad uur leedaho uurkaagu weliba high risk yahay oo malisa raadso kula socotaa haddii aad mataano weliba uur mataanuhu waxay u badan yihiin dumarka madow baa dhala mataanaha badankooda waa area ay dhakhaatiirtu aad ugu xiise badan yihiin oo ay ugu baaritaan badan yihiin ilmaha madowga ee mataanaha studies badan baa lagu sameeya hooyada waxaa la rabaa inay iyaduna taxadarto markaad ogaatid inaad ama mataano leedahay ama uurkaad wadid uu yahay high risk ama caafimaad ama arin kula soo daristay ha ku kaliyoonin qof kaaga aqoon badan raadso oo kula wada arintii kula gardaadiya intayna meel ka fog ayna kula gaarin waa tahay adiga hadda ilmahaagii adoo hooyo ah oo awooda inaad ilmahaada korsato dhaqaale ahaan iyo physical ahaan oo wax caawimaad aan u baahnayn yaa qof cadaan ah oo la diin ahayn la luqad ahayn la dhaqan ahayn u ekeen iyo loo geeyay hooyooyin badan oo Soomaaliyeedna iyo waalidiin badan oo kaleba way haysataa dhibaatadaas oo kale marka dadka Soomaaliyeed ee hadda ina daawanaya maxaa doonaysay ama jacayl inay kula qabtaan horta waxaan rabaa inaan ka hadlo tan caruuraha dawladda gacanta u gelaya waxyaabo badan baan la soo kormay arrimooyin badan baan soo maray aqoon badanna waa ii soo kortay intaan ku jiray systemkan hadday noqoto caruuraha systemka gelaya anigu dagaalkii aan wiilkaygu dagaalamayay ayaan ogaaday in ay disparities badan ay communityga ka jirto
dhibaatada haddayna weligaa adigoo kugu dhacin ma garan kartid sida loola xaajoodo. saxiix 4 sano igu qaadatay inaan ku barto systemkan iyo siduu u shaqeeyo iyo dhibaatooyinka kasoo gaari kartaa. waanada degree jaamacad kale weeye 4 sano jaamacad baa looga baxaa jaamacad iyo waxay igu noqotay jaamacadayaal. arrinka ka adag weligay maanan soo marin, laakiin ugu dambeyntii hay-adahani hay-ado dhib yar ma aha. inay dadku wax bartaan baan rabaa oo hay-adihii say loola macaamulaya ay bartaan. waxyaabaha kamida markii aan ilmahayga u dagaalamayay aan bartay bay ka ahayd in ayna jirin dad inakaynoo eeg ama ay ku yar yihiin oo shaqadan gala. hay-adan caruurta badbaadadoodu waa business. ugu dambeyntii calaa kulli xaal waa business. kuwa ilmaha haya lacag bay ku qaataan, kuwa ilmaha qaadaya lacag bay ku qaataan. hadday arintii sidaa tahay communitigeeni wuu ku wareegay, albaab aanan garaacin qof aan u tegin ma jirto. waxaan soo ogaaday in wax badbaado ah ama difaaca ama resources dhinacaas aynaan ku lahayn. aniga ayaa isxilqaamay markaan arkay disparity-ga jira. waxaan isku dayay in aan anigu u sameeyo platform. waxaynu u baahannahay ama magaaladan deganahay ha noqoto ama magaaladan Minneapolis ha noqoto ama Europe ama Canada ha noqoto, qurba joog hadaynu nahay inaynu samaysano hay'ado inaku aynu leenahay. adigu hay'ad ma samaysay? waan sameeyay hay'ad baan sameeyay aan Columbus Ohio ka sameeyay. waxaa la yiraahdaa Zamzam Women and Family Center. hay'adaasna ujeedadan anigu ka leeyahay waxa weeyaan dumarkii caruurta kaliya in lagu caawiyo, hooyo iyo ilmo iyo reer dhibana ah in lagu caawiyo, cod loogu noqdo. waxyaabahan hadeerto aan ka baro ama aan ka educate gareeyo communitygeena ayaa waxay tahay haddii aad dowladda aad la daristid arrin kaa gasho weligaa keligaa ha la hadlin. qofaa kula socdo ama lawyer kula socdo ama advocate kula socdo. run ahaantii resources way jiraan wadankan. resourceski communitygeena badanaa ma soo gaaro. waxay u baahan yihiin communitygan waxay iyagu leeyihiin. waxaynu u baahannahay hay-ado caruuraha xanaaneeya haddii ay reer la soo daristo arrintan oo kale. haddii ilmo reerka laga qaado waxaynu u baahannahay hay-ad Soomaaliyeed ama dad Soomaaliyeed oo isqora, hay-adahan iska qora oo ilmahaas inta waalidiinta la baarayo iyagu sii haya si ayna gacan kale u gelin. kuma sheegi kara xanuunka ay leedahay in qof kale, dumar kale, weliba dumar aan kula diin ahayn kuunan eekayn in intay ka hor timaado ku tiraado ilmahaagan hooyo u ahay adigoo ilaahay 6daadii lixaad ku dhameeyey oo ilmahaagii haysan karaa oo ilmahaagii adigu daryeelku baahan yahay siin karaa in qof kale oo adiga ku eekayn intuu ku yimaado ku yiraahdo ilmahaagana hooyo ah go'aankana aniga ilmahaaga u gaara. cadowgeyga uma rabeen nabarkaas. waa arrin xanuun badan, aad u xanuun badan weeyaan. dadka Soomaaliyeed qurbaha ku nool gaar ahaan Mareykanka, Minneapolis inuu xaladin ka duwan tahay laga, laakiin isku dhibaato baan haysata oo ilmaha wax yar oo macna lahayn baa inta loo qaato waalidkii lacag badan intay bixiyaan lawyer adeegsadaan kadib mar dambe loo soo sidaa. sax ayagu wax dambiya lagu helin hataa aynan cidna dacweynin mar dambe inaan oran ma sax qadaraad lagu dacweysano trauma iyo waxna geliseen iyo qarash fara badan oo hataa civil lawsuit inta badan ma baxrayaanba. marka maxay u baahnaan lahaayeen inay sameeyaan kiiskaadana ama ay ka qayb qaadan karaan hadda iyo kuwa kale la midka ah? waxaynu u baahannahay dad inoo eeg inay ku jiraan hay'adahan iyo dhaqtaradan businesska noocan ay galaan. aqoonta ugu badan ee ii soo kordhay intaan systemka child welfare-ka aanan hadda ku jiray ee dagaalkan ku jiray ayaa waxay tahay relationship, xiriir aad iyo aad unhealthy oo ah oo unjust ah ayaa ka dhexeeya dhaqtaradii caruuraha iyo hay-adahan child welfare systemka. way wada shaqaystaan. dhakhtarkiina waalidiintii wuu eedeynayaa, hay-adiina way prosecute garaynaysaa oo maxkamad bay saaraysaa. aakhirkii waalidkii ayaa la eedeynayaa, ilmihii yaraana waa la qaadanayaa. waxaynu u baahannahay dad inoo eeg inay hay-adahan iyo dhakhtaradan iyo meelaha go-aanadan lagu gaariyo ay fadhiyaan liaison
baynu u baahannahay dhakhtaro Soomaaliya, nurses Soomaaliya, social worker Soomaaliya inay ku jiraan boordarka agency-yadan ama dhakhtaradan inay inoogu jiraan. difaac bay community-gu u baahan tahay, difaacaasoo ah codayn. marka waxaad ka hadlaysaa wixii basica bulsho walba oo doonaysa inay wadankan ku survive garowdo inay samayso, inay organize ahaato oo miiska wax lagu qaybinayo ama go'aamada lagu gaaray ay fadhiyaan. sax, markaad adigu aad la imaanaysid aqoontaadii iyo resourceskaagii iyo waxtarkaagii way ka duwan tahay markaad baryotamaysid. waa tahay dabcan waxaan rajaynayaa cid walba ina daawanaysa inay ducada ay kugu soo kabaan. waxaa kaloo hadda miidiyaha u timid in dadka Soomaaliyeed ay hurdada ka kacaan. sax, eredan ay u baahan yihiin sida siyaasadda iyo meelaha kale ay xoog u saareen inay halkaan xoog saaraan si carruurta u badbaadsadaan. aad iyo aad adduunkii oo dhan baa xumaanaya, weliba wadankeenu ku noolnahayna kulli waynu la wada soconnaa. waxaynu u baahannahay inaynu toosno, waxaynu u baahannahay inaynu toosno. carruurtu waa future-kii. our children are our future. waxa la target garaynayana waa iyaga, hadday noqoto dhinacii child protective services iyo child welfare-ka, hadday noqoto dhinacii iskuullada iyo hadday noqoto dhinacii caafimaadka iyo dhakhtaradaba. badbaado ayaanu u baahannahay, cod baanu u baahannahay, preventative measures, ka hortag in naloo sameeyo. qof keligii maraya iyo qof communitygiisu daba taagan tahay waa laba kala dheeryihiin. aad iyo aad. communityga ama bulshada Soomaaliyeed maxaad uga baahnaan lahayd inay kula qabtaan? saan u sheegay, garabkaasoon lacagna ku xirnayn, representationna ku xirnayn, laakiin ku xiran in la istaageero, in mahad arintiisa laga hadlo, in advocacy badan la sameeyo, in awareness badan la sameeyo. mahad tusaale u noqonayaa intaasoo caruur oo kale. marka mahad keiskiisa caawitaan baan u baahanahay ah garab community iyo hadal in laysoo garab istaago, in qof walba oo awood leh oo platform leh inuu arintan ka hadlo, in adduunkoo dhan laga ogaado. weliba wadankanaynu degannahay aad iyo aad waxaa u shaqeeyo aynu ognahay waxa weeyaan advocacy awareness. inta qof ay ka hadlaysa sheekadu waa saameynay ku yeelanaysa hay-adahan, inay iyaga ay saarto pressure inay soo fadhiistaan oo arintii ka hadlaan, ka hortagna ka sameeyaan sidayna community-ga saameyn uga sii yeelanin. waxaan kaloo u baahannahay arinteena gaar ahaan caawitaan ah dad khibrad leh, looyaro. hadda arintii waxay maraysaa civil rights bay maraysaa, iyo hay-adihii islaamiga inaanu tagno iyo madowga xuquuqda dadka uu u hadlayay. annaka constitutional, civil iyo parental rights keeniba waa nalaga qaaday. annagoon waxba sameynin baa criminals nalaga dhigay, ilmaheenni baa nalaga qaatay. dhibaato badan ayaa nalagu sameeyey. keligii ayaa hadda muddo 4 sano iyo bar state of Ohio lasoo dagaalamayay. walaaladii Soomaaliyeed iyo walaaladii Muslimeed iyo qof walba oo khibrad leh caawitaan baan uga baahanahay, kaasoo ah aqoontii barteen, wax kale ma aha. haddaad dhakhtar tahay oo caafimaadka caruurta aad baratay, fadlan waan kuu baahanahay si aad recordskii noola fiirisid. waxaan u baahanahay dhakhtaro siiba brain injury-ga, traumatic brain injury, caruurta yar neonatal traumatic brain injury kala garanaya, oo radiologist baan u baahanahay dib sawiradii noogula laabta oo nala akhriya samariyadoodii. waxaan u baahanahay dad garanaya dowladda oo logistically qoritaankii iyo maxkamadihii paralegal garanaya sida loola macaamulo maxkamadaha. caawitaan badan baan u baahanahay. hadeertana wiil hadda ka hor cadaan ayaa video noo sameeyey, meel fog buu gaaray videogii. run ahaantiina support badan baanu ka helnay. kamiri baanu hadda mahad u sameynay ilaa 10 qof ah oo ajnabi badanna ku jiraan, annaka noo andacoonaya. waxaan rabnaa wixii aqoon leh inay nala soo xiriiraan sidaanu u siino informationkii keiska, wixii ay nagu soo darsan karaanna ay noogu soo darsadaan. aad iyo aad ayaynu u mahadsan yihiin. aad baa u mahadsantahay.